Boofiska xeryaha qaxootiga dhaab maxaa lagu soo kordhiyay isbedelada cusub maxay tahay iyo wararkii kale oo ku saabsan boonaha cusub boonooyinka cusub oo dadka baahanooyinka la siinayo labadaas muuqaal ayaan si fiican u faahfaahin doonaa insha Allah markaan ku bilaabo wararka muhiimkooda ah oo ku saabsan boofiska xeryaha qaxootiga dhaab maxaa lagu soo kordhiyay maxayse tahay waxyaabaha oo cusub oo lagu soo kordhiyay boofiska si aad u daawato muuqaalkan dhamaystiro qadar yar adeega bulshada السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتان جعلهاي kusoo dhawaada qaxootiga dhaab channel sidaad horaan u barteen arrimaha ku saabsan qaxootiga maanta insha Allah mowduucan wuxuu saabsan yahay dadka soo barakacay oo mar dhow imaaday xeryaha qaxootiga dhaab sida ifaa xaga dheer dhigaxley dadka soo barakacay oo baahanayaalka ah ayaa loo shaqeyn doonaa birito oo arbaca ayaa loo shaqeyn doonaa waxaan la siin doonaa boonooyin ay raashin ay ku qaataan ayaa la siin doonaa birito hadduu ilaahay na gaarsiiyo marka qaabka loo shaqeynay wararkaas ayaa rabaa si fiican ula socda muuqaalkan dhamaystiro boonooyinka la siin doono waxaa ka mid ah dadka oo mar dhow imaada qaxootiyaha oo cusub oo weligood allahooda fara qaxooti gelin oo kaar weligood goosan iyo sidoo kale dadka kaarkooda ka dhacay iyo sidoo kale dadka kaarkooda ku guuro Soomaali aaday ayaa la siin doonaa wixii baahanay oo kaar shaqeyn oo haysanin dhammaan ayaa loo shaqeyn doonaa waxaa la siin doonaa boono ayaa la siin doonaa boonada soo ah ay ku qaadan doonaan adeegyada sida raashinka because waxyaabaha aasiga dadka ay ku qaadan wax walbo raashinka ayaa u daran marka UNHCR iyo hay'adan oo qaabilsan oo dawladda xaggooda oo qaabilsan DRS la dhahayo Department Refugee Service la dhahayo oo farbixinta oo farahan alien u qaabilsan ayaa go'aan u xigaaran qaxootiyaha soo barakacay ee dadka kaarkooda ka dhacay ee dadka kaarkooda ku guuray oo soo laabtay waxba aan haysanin raashin iyo baad waxba aan haysanin in kaar oo la siiyo boonada soo ka caawinayso inay raashin ku qaataan raashinka soo because qofka raashinka markuu qaxooti u yahay WFP waxay dhahday dadka macluulka gaajada intay u dhiman lahaayeen boonaha la siiyo because dadka marka loo doonay kaar raashin la siinayo kaar raashin wuxuu u baahan yahay process dheer ayuu u baahan yahay in qofkan fara laga qaado faraha soo ah in loo gooyo alien xaqooqyo badan ay u baahanay marka waxay u baahan tahay in dawladdan ay ogolaansho laga helo dawladdan ilaa hadda meesan ogolaanin qaxootiga cusub oo kaar raashin la siinayo dawladda Kenya ilaa hadda ma ogolaanin maadaama dawladda Kenya ay ogolaanin hay'adan u qaabilsan alienka iyo sidoo kale UNHCR iyo WFP waxay ku gaareen inta dawladda go'aan gaarayso dadka kaar raashin la siinayo in la siiyo boonada soo ka caawinaysa inay raashin ku qaataan sidaas ayay go'aan gaareen marka si aad muuqaal ku dhamaysto iyo wararkii u dambeeyay boofiska xeryaha qaxootiga dhaab si aad ula socoto fadlan muuqaalka si dhamaystiro haddii aad ku cusub tahay fadlan haddii aad ku cusub tahay qaxootiga dhaab channel fadlan waxaan ka codsanayaa inaan ugu dhiirigeliso subscribe noo saar gambaleelka furo sidoo kale like noo saar muuqaalkan noo share garay dad badan asxaabtaada u dir oo macluumaadka u baahan waana mahadsantiin dhammaan asxaabta ku xiran qaxootiga dhaab channel oo mar walba muuqaalada daawato waan niga mahadcelinayaa mar walbo waad ku mahadsantiin daawashada quruxda badan aad mar walba ku xirantiin kanaalkeena insha Allah waana mahadsantiin sidoo kale aan ku sii socdo qodobkaas UNHCR siday horan u sheegtay dadka baahanayaalka ah oo kaar raashin aan haysanin ama kaarkooda ka dhacay ama kaarkooda ku guuray ama qaxooti cusub ha ahaadaan dhammaan waa loo shaqeynayaa waxaana la bilaabayaa arbacada iyo khamiis jimco saddexdaas ayaa si xooli ah looga shaqeynayaa waana saddexda xaro waa ifo xaga dheer dhagaxley saddexdaas xaro waa laga shaqeynaa si habsami leh marka waxaan ii sheegayaa dadka ku xiran xeryaha qaxootiga dhaab oo xaga dheer ifo dhagaxley joogaan waxaan ka codsanaynaa muuqaalka faafiyaan dadka walaaladooda baahan fursadahana ka faa'iidaystaan si ay raashin ay u qaataan boonada dad badan ayaa sugaayay muddo badan na weydiinayay boonada goormaa loo shaqeyn doonaa boona goormaa loo bilaabi doonaan dad badan ayaa na weydiinay su'aalahan si ay su'aalahan ugu jawaab ugu helaan fadlan ha loo sheego dadweynaha la gaarsiyo dadaan haysanin fariintan ayaa jiraan fadlan waxaan iga codsanay muuqaalkan hala faafiyo sida ula socotiin adduunka horumar ayuu gaaray aaladaha waxaa la isticmaalaa WhatsApp ka la isticmaalaa Facebook la isticmaalaa
Twitter ayaa la isticmaalaa, YouTube ayaa la isticmaalaa. Mar walba muuqaalada qaxootiyaha ayaan soo dhignaa. Channelkeena wuxuu ku saabsan yahay qaxootiga Dhadhaab channel ayaa lahaa magaciisa. Waxaana soo dhignaa warbixinada ku saabsan qaxootiyaha caalamka. Mar walba warbixinada ku saabsan caalamka sida wararka boviska, sida kaarbixinta, bamajitulada, dhammaan adeegyada qaxootiyada helaan iyo xuquuqdooda dhammaan mar walba ayaan soo dhignaa. marka insha Allah maanta mawduucan wuxuu ku saabsan yahay wararkii ugu dambeeyay boviska iyo sidoo kale boona bixinta xeryaha qaxootiga Dhadhaab. waana walaalkiina Maxamed Daacad waana ku mahadsantihiin muuqaalkan si daawada. dadka loo shaqeynaya marka waa dadka baahanayaalka ayaa loo shaqeynaya. sidoo kale waxaa jiraan ilmo yar yar ayaa jiraan oo dulfuulayaal leh. ilmahaas dulfuulayaalka haddii aad u tahay abti, haddii aad u tahay eedo, haddii aad u tahay walaalo, haddii taarkaada uu baahan yahay adina taar aad qabto ama baahan aad tahay, ilmahaas dulfuulka waxaa loo baahan inay soo xaqiijiso hay'adahan caruurta u shaqeeyo sida Save Children iyo TDH oo saddexda heer ka howlgalayaan. marka insha Allah sidaas ha loola socdo. ha ku habsaamina meeshii UNHCR tirkoobeeda u dambeeyay lagu galay saddexda xaro meesha ayaa lagu shaqeyn doonaa si habsami leh ayaa loo shaqeyn doonaa. marka ilmaha yar yar oo dulfuulayaalka looma shaqeynayo sababta tahay ilaa ay soo xaqiijiso hay'adaha caruurta u qaabilsan. sababta tahay inaad soo xaday in kala hay'adahan kama warhayaan ilaa ay halaan warqad ka socoto ama email ka socdo hay'adaha caruurta u qaabilsan ayaa la rabaa inaad aadid. sida UNHCR ay maanta u sheegtay dad badan ay u sheegeen ay dhahay ilmaha dulfuulayaalka xafiisyada oo u qaabilsan caruurta sida TDH iyo Save Children ha booqdaan haddii raba in adeeg loo shaqeeyo. laakiin dadkii kale ilmahooda haystaan iyo dadkii kale caadiga iska waxay booqanayaan si toos ah u tagayaan goobta loo shaqeynayo tirkoobta u dambeeyay laga shaqeynayo UNHCR ama Tresetka ayay booqanayaan si looga shaqeeyo oo boono cusub loo siiyo. marka dadkan sidoo kale qodobka kale waxay leeyihiin dadka Kenyaanka ah oo tabaana haysto oo meesha yimaado oo soo doonto boonahan oo faraha laga qaado oo la xaqiijiyo farihiisa inuu tabaana leeyahay. dadkaas waxaa lagu ganaaxi doonaa $5,000 Mareykanka ayaa lagu ganaaxi doonaa mise 3 sano oo xariga mise labada waa la isku dadari doonaa leeyahay. marka waxaan u baaqayaa dadka deegaanka ah oo tabaana haysto inaysan meeshas imaanin. dadkan waxaa loogu tirigalay kaliya dadka qaxootiga bes ayaa fursadan iska leeyihiin. dadkan soo barakacay oo wiligood allahooda kaar aan goosanin iyo sidoo kale dadkii kaarkooda ku guuray oo haddana dhibaato iyo colaad iyo wili dhibaato kale isku soo celisay inay ku soo laabtaan qaxootiga mar labaad. iyo sidoo kale dadka kaarkooda ka habsaamay ama kaarkooda ka xirmay oo ilaa haddana loo furin dadkaas ayaa la siinayaa boono ay raashin ku qaataan. raashinada la qaadanayana 100% ayay qaataan. laakiin dadka raashinka iska leh waxay qaataan 60% 40% waxay ku qaataan bambajitula si adeegas ay u helaan raashinka inta ku gaari lahayd boonada ay ku gaaraysaa. fadlan insha Allah boviska xeryaha qaxootiga Dhadhaab ilaa hadda waxba isbedel fiican ma muuqdo. dad ayaa ku jiro oo ku jiro gool oona falaay oo bixi doonaan sida u dhaqsiyaaba isbuucan gudihiisa. waana dad Canada falaay ah iyo sidoo kale dad oo Mareykan ah falaay qoysas saddexda xaro iyo sidoo kale Khartoum oo laga soo qaaday Mareykan. laakiin qoys yar ayay ahaan waxaa la sheegay ilaa 15 qoys inay ahaayeen oo Mareykan ah. 15 qoysna hadda gool ay ku jiraan sida u dhaqsiyaaba waa la qaadi doonaa. waxaa la diin doonaa wadanka Mareykanka. sidoo kale hadda waxaa la sheegayaa qoladan GFA iyo INS waxay sheegayaan isbuucyadan soo socdo haddii bishan Ramadaan ku dhamaado hadda sida u dhaqsiyaabada feelashooda dadkii waa la sii wici doonaa in bisha dabayaaqada bisha shanaad taariikh 3 ilaa taariikh 5 ayaa si xool loo bilaabi doonaa. GFA iyo INS iyo sidoo kale First Phase oo Mareykan ah First Phase in Mareykan ah. marka waxay sheegeen ilaa taariikh 5 taariikh 5 ilaa taariikh 10 inta u dhaxayso dad badan ayaan ka heli doonaa sidoo kale waana mahadsantihiin. wabillahi tawfiiq waana walaalihiin.